nasiib daro ah sida aan u badannahay inaan cibaadooyinka aan u khaas yeelno mawaasimta khayraadka sida ramadaan iyo xajka aanna iska ilowno in Allah subxaanahu wa tacaala isbuuc waliba uu inoo sameeyey maalin fadligeeda uu aad u weyn yahay. Allah kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lis-salaati min yawmi al-jumucati fascaw ilaa dikri llaahi wadaru l-bayc dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamuun. rasuulkana sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in maalinta jimcaha iyo fadligeeda uu yahay maalinta ugu khayrka badan ee qoraxdu soo baxda. maalinta jimcahana maalin ka khayr badan ma laha ilaa maalinta carafa mooye. rasuulkana sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay man ghasala waghtasala qofkii qubaystaa wabakkara wabtakara ee goor horaa masaajidka aadaa wamasha socdaa walam yarkab wax daabad ah aan raacin fadanaa min alimaam imaamkana u dhowaadaa wax lagwi ahnaan ku dhicin ee dhagaystaa kaana lahu bikulli khutwatin tilaawo walba uu qaadayo wuxuu helayaa camal sanad ah siyaamkeeda iyo qiyaamkeeda. ruuxa mu'minka ahna markuu masaajidka u socdo tilaabo kasta uu qaado waxay u dhigantaa ajar sanad ah ayay u dhigantaa qiyaamkeeda iyo siyaamkeeda. rasuulkana sallallahu alayhi wasallam waxa uu inoo sheegay dadku inay u kala mutaysan yihiin ajarka sida ay u kala horeeyaan. amaa sunanka laga doonaya qofka muslimka ah maalinta jimcaha waa inuu goor hore soo kacaa, qubaystaa, isnadiifiyaa, kadib ka xirtaa dharkiisa dharka ugu fiican uu markaasi heli karo, eena ka doortaa dharka cad ee wax udgoon ah hadduu haystana uu ismariyaa si uu isugu diyaariyo maalintaasi maalinta jimcaha. qofkana waa inuu sameeyaa 5 sunan ee fitriga ah ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ina amray. aadaabta laga doonaya qofka muslimka ah maalinta jimcaha waa inuu goor hore masaajidka aadaa, uuna fadhiistaa meesha uu soo gaaro asagoo aan dadka dhaafayn, imaamkana inta uusan mimbarka korin, kadib dugtaa 2 rakac oo taxiyatulmasjid ah. ama acmaasha kale uu sameynayo qofka waa inuu akhriyaa suuratul-kahf maalinta jimcaha. nabigana calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim uu ku salliyaa in badan. allahumma salli wa sallim calayh. waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaato maalinta jimcaha in ay leedahay saacatul istijaaba. culimmadana waxay yidhaahdeen waxay u dhaxaysaa waqtiga casirka ilaa maqribka. qofkana waa inuu ducada badiyaa uu Allah subxaanahu wa tacaala weydiistaa waxa khayrka ah.